Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bahda gaarsiiye marka la soo dhawaada maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeena shanaad ee ku saabsan kooraskeena Microsoft Excel. Maanta waxaan baran doonaa wax loo yaqaano status bar iyo siyaabaha oo u shaqeeyo haddii alla idmo marka. Kooraska marka uu dhamaado qofka wuxuu baran doonaa muxuu yahay status bar, halkee laga helaa status bar markii la joogo Microsoft Excel, maxaa looga faa'iideysan karaa status barka markii aad isticmaalaysid. Marka kusoo dhawow cashirkeena maanta. Markii aan joogno Microsoft ee soo kicino status bar horta waxaa loo yaqaanaa ama uu ka shaqeeyaa halka hoose maxaa la yiraahdaa Excelka kuu furan. Marka status barka marka wuxuu kuu muujin karaa waxyaabaha aad u baahan tahay Microsoft Excelka. Tusaale waxa ugu horeeya oo status barka laga faa'iideysto waxay tahay zoom in iyo zoom out. Excelka kuu furan in aad zoom in garay karto, yaray karto, zoom out na aad ku sameyn karto, aad soo dhaweyn karaysid. Waxyaabaha kale inte status barka looga faa'iideysto waxaa ka mid ah marka aad rabtid inaad si degdeg ah ku ogaatid sum, iyo marka aad rabtid inaad si degdeg ku ogaatid average, iyo inta cell ee ku dooran haddii worksheetkaaga uu aad u balaarto. Marka tusaale waxaan rabnaa hadda ardaydan tirada ardayda imtixaanka gashay waa imisa, waxaa kale inta u baahanahay average-ka isku geyntooda waa imisa, maadooyinkooda maado ka mid ah haddii la isku geeyo tirada ay keeneen waa imisa. Marka waxaad dooranaysaa hadda maas oo kaleeto marka aad dooratid markii asaas aad ku soo jeedid adoo la hayo maxaa la yiraahdaa qaybta hore ee keligta waxaa kuu sheegayaa halkan hoose status barka wuxuu ku siinaa marka xog degdeg ah adoona weli waxba aan sameyn. Kow waxaa lagu sheegay average 70 inuu yahay isku geynta ardaydaas, ardayda imtixaanka gashay inay 6 yihiin, sum waxay ay keeneen ama cellka xogta ku jirto markii la isku wada geeyo ay tahay 418. Haddii aan u baahno inaan sii balaarino oo ogaano ardayda oo dhan maxaa la yiraahdaa meeqo ayay percentage-kooda yahay markii la isku geeyo maadooyinka waxa ay ka keeneen oo dhan 32% waaye, waa 18 cell ayaan highlight gareynay oo maxaa la yiraahdaa ku sameynay isku geyntoodana waa 1299. Marka so at the same waxaa u isticmaali kartaa wax kasto haddii ay business ay joogtid oo aad rabtid inaad ogaatid isku geynta unit prices-kaaga oo dhan waa imisa, average wuxuu ku soo fariisanaya shayashan 218 waa 5 product waxyaabaha la iibinayo lacagtoodana markii la isku geeyo waa 1090. So marka status barka wuxuu kuu fududeynaya ama uu kuu sheegaya inaad si degdeg ah ku ogaan karaysid intaadan sameynin sum ama isku geynta waxyaabaha aad u baahan tahay. Marka iyo inta cell ee ku dooran sidoo kale wuxuu ku ogolaanayaa county meeqa ayaa ku dooran, average-koodana waa imisa. Maanta waxaa baranay status bar muxuu yahay, sidoo u shaqeeyaa, waxa uga faa'iideysan karnaa hadayna qalin 3 qaybood oo leeyahay sum, average iyo count. Sidoo kale waxaa baranay maanta zoom in iyo zoom out si loogu sameeyaa Microsoft Excel-ka adoo ka faa'iideysanayo status bar. Waa inoo cashirkeena dambe insha Allah. Maasnidiin.